بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال halkani waa channelka wararka dunida qodobada wararka xiisaha leh ee aan xiliga kan idin hayno waxa ugu waaweyn Shariif Sheekh Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhawaaqay go'aano xasaasi oo ka dhan dawladda federaalka ee Soomaaliya siyaasiyiinta soo weerartay ee ku wajahan dawladda Soomaaliya qorshaha ay damacsan yihiin warar ku saabsan waan idin haynaa iyo shirki ay ku yeesheen magaalada Muqdisho faahfaahin ayaad ku daawan doontaan warkeena حليم يري قدوميها قدقة دورشوين كمدح بنان إهير قرن أو إسكافوغيسي إذا ما كلل أو دوان لو جيدي قرشها عصب دولة فدرالك الصومالية أي كده مع سنتهاي مامول كجبلان أو حقالة جهري والدي سوق بدونا ورقو سابسن وكيل كجبوتي سومالي لان أجوغا أو لغا إرينيا مقالة هرقيسة عاصمة الصومالي لان كدب جوابه سياسي فيصل علي ورابي حيصد عصب سوماليلاند iyo Djibouti faafayna ku saabsan waan idin haynaa Mareykanka oo sheegay in Soomaaliya uu ka fulin doono duqeymihiisii ugu badnaa awid oo uu ku beegsanayo ururka al-shabaab kadib weerarkii shabaab ay ku qaadeen dhawaan xirada biladoogle ee Mareykanka uu degan yahay war ka soo baxay taliska Mareykanka waan idin haynaa qodobadan ayaad warkeena ku daawan doontaan daqiiqadaha soo aadan صاحبة قيمها يقدرنتا إنك مدن channel كنا ورك الدنيا سبسكرايب بعدين هذا سيادو هشان موقع لدينا حاجة هاتنا كوسو دو هذا أقضى بدي أو دميسترن أما دحينياشي هو رئيس صوماليا إكلا شريف شيخ أحمد يا حسن شيخ محمود ومقالة مقدشة كوسو إدليي الشرق السعودي مدلور مع الماء هيا خد بدأ يكجدي مناسبة الشركة سي كوسو حرين وحايكا جهلين مرحلة السياسة الدلكا labadaasi mas'uul ayaa ka simnaa weerar siyaasadeed oo ay si toos ugu qaadeen madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo carbaabay in marxalad siyaasadeed oo aad qatar u ah ay dalka ka taagan tahay Shariif Sheekh Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrimaha ay ka hadleen waxa kamid ah dastuurka dalka u yaal oo ay ku eedeeyeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya in ay baalmarayaan xiligan sidoo kalena ay burburinayaan dadaaladii dalka loo soo maray ee dib u dhiska dalka وسيدا هذا الكيو دقينه السيدا وكلو حا اي كهلين حريرك الدولة الصومالية يقار كمدا دولة قبلادية دالك كدسان السيدا بنتلان يجبلان او الدولة فدرالك الصومالية اولي اي لتعاليسو حالنتا جاورارك السياسات اي كتاقن كسمايو شريف شيخ أحمد يا حسن شيخ محمود أي الدولة الصومالية كويدي فرقلين توسا أو أي كويسو دولة قبلادية الدالك كدسان لابد المسؤول أي سيدا وكالي وحا اي هوستا كحريقين وسيدا قدبضهooda ay ku xuseen in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka hor imaanayso nidaamka federaalka ee ummadda Soomaaliyeed horay ugu heshiiyeen taas oo ay sheegeen in haddii dawladda Soomaaliya ay ka baaqsan weyso ay ka dhalan karto xaalad khatar ah waxay yiraahdeen haddii la burburinayo nidaamka federaalka waa in ummadda Soomaaliyeed ay shir isugu yimaadaan ayna kaga hadlaan sidii markii hore oo nidaamka federaalka la qaadanayay ay ugu shireen balse iyadoo taasi dhicin ayay ka digeen in dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay doontaa iska sameeyso ugu dambeyn qodobadahooda waxa ay ku sheegeen in dawladda ay ku midoobeen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed oo kuwooda ay ku jiraan ay si weyn uga shaqeyn doonto in dalka ay ka dhacdo doorasho cod iyo qof waxa salayaab leh cid ay gacanta ugu jirto maamulka iyo hoggaanka talada dalka bal inay yihiin xisbiyadan siyaasadeed ee iminka ku doodaya in iyagu doorashada ay diyaarinayaan iyo in dawladda federaalka Soomaaliya oo nidaam sharci ah ku dhisan bal talada iyadu ay leedahay ama in kale gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee heer qaran ee dalka Marwo Xaliim Yari ayaa iska fogeysay eedeymo kulul oo dhawaan kaga timid qaar kamid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka eedeyntaasi oo salka ku haysay in gudiga doorashooyinka qaranka ay u xaglinayaan dawladda federaalka Soomaaliya marka la eego doorashada soo socota oo loolankeeda haatan si tartiib kaga bilaabanaya magaalada Muqdisho dhinacyada eedeymaha u jeediyay Xaliim Yari waxa kamid ah xisbiga wadajir oo uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaana xisbiga wadajir kol hore uu ku eedeeyay gudiga doorashooyinka inaysan ahayn kuwa si cadaalad ah u shaqeynaya isla markaana dhanka dawladda federaalka Soomaaliya ay u jaranjeeraan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale ku eedeeyay xiligaasi gudiga doorashooyinka inaysan ahayn kuwa madax banaan sidoo kalena
xafiiskooda uu ku dhex yaalo xarunta madaxtooyada ee dowladda federaalka Soomaaliya. haddaba Xaliime Yarey oo eedaasi ka jawaab celinaysa ayaa waxay sheegtay inaanay waxba ka jirin eedeymaha kaga yimid xisbiga wadajir oo ka mid ah axsaabta siyaasadeed dalka ka dhisan, waxaana gaashaanka ay ku dhifatay warka ku aadan inaysan cadaalad ku dhaqmeynin guddiga doorashooyinka. siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee dhanka mucaaradka lagu tiriyo ayaa inta badan waxaa iska caadi ah in ay weeraraan hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya, kuwooda madaxa bannaan iyo kuwa kale ee dowliga ah. xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay damacsan tahay qorshe hor leh oo ka dhan Axmed Madoobe iyo xulufadiisa. sida warbaahinta xogta ku heshay, xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay qorsheynaysaa in ciidan militari ah ay geyso magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo sidoo kale maamulka Jubbaland uu si ku meel gaar ugu shaqeeyo. ciidankan oo ka kooban dhowr boqol ayaa ujeedada dowladda Soomaaliya ay u geey doonto gobolka Jubbada Hoose waxay tahay ka qayb qaadashada howlgalo la sheegay in al-shabaab looga saari doono deegaanada ay kaga sugan yihiin Jubbada Hoose. xogta ayaa intaasi waxa ay ku daraysaa in dowladda federaalka Soomaaliya ujeedada ay u geey doonto ciidankan gobolka Jubbada Hoose inay tahay sidii ammaanka guud ee magaalada Kismaayo ay gacanta uga dhigi lahaayeen si dowladda Soomaaliya ugu suura gasho sidii Axmed Madoobe ay kaga saari lahayd maamulka Jubbaland ee uu isleeyay Axmed. dhinaca kale Axmed Madoobe oo arintan aad kaga feejigan ayaa dhankiisa wuxuu kordhiyay feejignaanta ku aadan tallaabooyinka kaga imaanaya dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Axmed Madoobe waxaa saaran cunaqabateyn diblomaasiyadeed kadib markii dhawaan dowladda Soomaaliya ay ka xanibtay baasaboorkii diblomaasiga ahaa ee xasaanada gaarka siinayay. Axmed Madoobe imanka uma suuragali karto in dalka uu dibadda ka aado sabab la xiriira baasaboorkii diblomaasiga ahaa oo dowladdu ay ka mamnuucday. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal xoog leh waxa ay ku bixinaysaa si walba oo ay Axmed Madoobe kaga saari lahayd booska. xildhibaano ka tirsan maamulka Somaliland waxa ay sheegeen in si degdeg ah xukuumadda Somaliland ay kaga dalbanayaan in magaalada Hargeysa ay kaga eriyaan wakiilka dowladda Djibouti oo fadhiya Somaliland. xildhibaan nacnac oo ka mid ah golaha wakiilada maamulka Somaliland oo saxaafadda kula hadlay magaalada Hargeysa caasimadda maamulka Somaliland ayaa waxa uu ka jawaab celiyay hadal maalintii shalay ka soo yeeray wakiilka dowladda Djibouti oo fadhiya magaalada Hargeysa kaas oo lagu magacaabo Xuseen Cismaan Kawaale. waxaana xildhibaan nacnac uu sheegay in wakiilku uu u gafay maamulka Somaliland, taasna ay tahay mid aysan aqbali karin. Xuseen Cismaan Kawaale wakiilka Jamhuuriyadda Djibouti oo fadhiya Somaliland ayaa waxyaabihii uu ku hadlay waxa ka mid ahaa in ay tallaabo ka qaadi doonaan Faysal Cali Waraabe, isagoo xitaa hadaladiisa ay ka mid ahaayeen xirsi in ay u xiri doonaan Faysal Cali Waraabe haddii uu yahay balaaye ka dhex taagan Somaliland iyo Djibouti. wakiilka Jamhuuriyadda Djibouti ee ku sugan Somaliland ayaa hadalkaasi waxa uu ka dhex sheegay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, balse jawaabtiisu waxay ku sii aadaysaa xilli Faysal Cali Waraabe maalmo ka hor uu ka sheegay kulan uu kaga qayb galay magaalada Hargeysa in dowladda Djibouti aysan dhexdhexaad ka ahayn wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland. Djibouti ay tahay cadawga koowaad ee Somaliland xilligaasi sida uu sheegay gudoomiyaha xisbiga Ucud ee ka mid ah xisbiyada ka howlgala deegaanada Somaliland. ugu dambeynna Mareykanku waxa uu sheegay in duqeyntiisii ugu badneed uu ka fulin doono gudaha dalka Soomaaliya. sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in ciidanka Mareykanku ay iska caabiyeen weerarkii dhawaan ururka al-shabaab ay ku qaadeen xirada Beledoogle ee Mareykanka uu degan yahay. sarkaalka ayaa beeniyay in khasaare buuran uu ka soo gaaray Mareykanka weerarkaasi, waxaana uu geesta kala sheegay in durba ay weerar kaga jawaab celiyeen ciidanka Mareykanka ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya weerarkii shabaabku ay ku qaadeen xiradaasi. isagoo uu sii hadlayay sarkaalkaasi ayaa wuxuu tilmaamay in Mareykanku uu dhawaan duqeymo aad u fara badan oo la beegsan doono al-shabaabka ku sugan gudaha dalka Soomaaliya si buu yiri awoodooda hoos loogu dhigo. inaga oo kaashanayno ciidanka Soomaalida ah waxaan dardar gelin doonaa howlgallada ka dhanka argagixisada, sababtoo ah waxay khatar ku yihiin amniga guud ee dunida gaar ahaan geeska Afrika iyo Soomaaliya. waxaan u joognaa Soomaaliya in aan soo afjarno weerarada bahalnimada leh ururkan ay ka geystaan gudaha dalka Soomaaliya, waana sababta ugu weyn ee aan u joogno halkan. sidaasi waxaa yiri Colonel Rodriguez oo ka mid ah saraakiisha Mareykanka ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya. warkii oo aad kala socoteen akhyaarta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan
janalka wararka dunida xiliga kan waa naga intaa daawashada wacan ee warkeena waad ku mahadsantihiin nabadgelyo